kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa Maya waa u maleeyahay inaan maqashay magac la yiraahdo Maya ama gabar la yiraahdo Maya inta badan Maya waxa la baxan gabdhaha la yiraahdo Maryama ama Maria marka magaca Maya xagoo ka imaaday ilbaxnimadii xadaaradii boqortooyadii Maya xagee ka dhisnaan jirtay goorma soo bilaabatay xageeysa ku dambeeyeen burburkoodiina maxaa sabab u ahaa ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkan soo dhawaada marka maanta kadib Maya marka aragtid ha ku wareerin Maya maxaa waaye waxa ogaataa meeshii ay ka imaatay magaca Maya waxay ahayd horta boqortooyo ka dhisan ama ilbaxnimo ka jirta labada America oo la yiraahdo waqooyiga America iyo koonfurta America iyo Mareykanka maanta ay arkaysiin ilbaxnimo ka jirta ay xilliga hore 2000 oo sano ka hor ama 2000 oo sano ka hor xilligii miilaadiga ilaa 250 miilaadiga okay wadamada ay ka dhisnaayeen markuu waakeen waxay ka jirtay labada America ee waqooyiga iyo koonfurta America laakiin wadamada xukuumadahaas ay sayid kugu dhisnaayeen shacabkooda sayid kugu fadnaayeen waxay ahayd waqooyiga Guatemala wadan waa wadan dhaca Latin America waqooyiga Guatemala qayb ka mid ah Mexico ina si fiican u taqaanina oo maleeyaha maadadan maadaama dhalinyaradii taariikhda Soomaalida ee dhulka maraan ee ugu badan ay tahay Mexico okay Mexico qayb ka mid ah wadanka la yiraahdo Belize Salvador iyo Honduras wadamadaas ay ahaayeen wadamadii xoog ay ku lahaayeen ilbaxnimadii Maya ama shacabkii Maya goorma soo bilowdeen waxay soo bilowdeen 2000 oo sano ka hor xilligii miilaadiga ilaa 250 miilaadiga Maya waxyaalo ay caan ku ah in waa jirtay sida ilbaxnimadii xagga caafimaadka horumarada ay ka gaareen caafimaadka cilmiga xisaabaadka cilmiga wareegga dhulka qorraxda iyo dayaxa iyo cilmigii ay ka gaareen ilbaxnimadii dhismaha oo waxay ahaayeen dhismihii ay dhiseen xilligii Maya waxa dhismihii ay dhiseen oo kala faraacinadii ilbaxnimada marka la yiraahdo Maya waxay isaga eegayeen waa faraacinadii oo isku eegayeen sida hadii la yiraahdo kala naqshadeynta guryaha dhismaha guryaha cilmiga caafimaadka horumarka ka gaareen cilmiga falaga wareegga dhulka qorraxda iyo maxaa la yiraahdaa dayaxa cilmiga ka gaareen cilmiga xisaabaadka intaas oo dhan waxaan ku dhahay waxay isaga mid ka yihiin cilmigii ama xadaaradii faraacinadii ay kaga tagtay Masar okay markii la yiraahdo maxay aaminsanaayeen shacabkii Maya waxay aaminsanaayeen markii la yiraahdo waxa ugu badan ay aaminsanaayeen ilaahay badan ay lahaayeen hal ilaahay maysan lahayn ilaahay aaminsanaayeen waxa kamid ilaahay abuuro koonka oo gooni u caabudu jireen ilaahay labaadna ay qabeen wuxuu ahaa ilaahayga abuuro samaawaadka habeenka iyo maalinta roobkana soo daayay ilaahay saddexaad ay aaminsanaayeen wuxuu ahaa ilaaha abuurka waxa waaye beeraha ay abuurahayaan waxay caabudi jireen ee u lahaayeen ilaahay gooni ah xilliga beeraha ay abuurahayaan xilliga dalka u soo go'ay guranayaan oo kale waxay lahaayeen ilaahay gooni ah ay caabudaan oo ay ilaahaas ka tala saartaan ilaahay kasta markuu wuxuu lahaa jihooyin sida koonfur iyo waqooyi soo jihooyin afar jiho ma laha wuxuu ilaahay kasta wuxuu lahaa jiho gooni ay ugu jeestaan iyo midab gooni ay ku caabudaan midab gooni ilaahay ku jihay maysan jirin ilaahay ku midabana maysan qabin ilaahay kasta jiha gooni u lahaa midab gooni ku caabudaan uu lahaa okay markii la yiraahdo marka xukuumadoodii ama wadan ahaantoodii ummad ahaantoodii xukunkoodii sidoo ku saleysnaa ma doorashay samaysan jireen ma waxyaalo kale ma oday dhaqameed ay lahaayeen makaanada iyo odayada diinta wadanka ka tali jiray maadaama ay yihiin boqortooyo xukunkoodii wuxuu ku dhisnaa oo asal u ahaa dhaxlid in wiilka aabiis ka dhaxlo aabihi awowga ka dhaxlay saas inay kala dhaxlaan dhaxal ay xukunkoodii ku dhisnaa oo ay ku soo gaareen ilaa iyo xilligii Spain oo wadankooda qabsanay okay dhanka marka laga fiirsho beeraha iyo maxaa la yiraahdaa Uganda beeraha horta way jireen oo waxay caan ku ahaayeen ka beerashada kaakaawga faniilaha iyo fuulka walow beerashada inta kala yaadaan iyo baradhada iyo waxa ay qabeen laakiin waxay caan ku yihiin markii Maya la yiraahdo waa kaakaawga faniilaha iyo fuulka cabitaanka caanka ah ee reer Maya lagu aqoon jiray ama ilbaxnimadii Maya waxay ahayd malabka la khamiiriyay waa malabka shinnida oo la khamiiriyay ayaa wuxuu ahaa cabitaanka ay jecel yihiin oo koowaad ay wadan ahaan ama ummad ahaan ay lagu yaqaano xayawaanaadka ay rabeystaan guryaha u jooga maxaa waaye marka xayawaanaadka ay rabeystaan waxa waaye boolaboolada eeyaha iyo deeqyada waxa kale oo jira xayawaan ay dhaqan jireen oo la yiraahdo lama xayawaanka ay ka dhigteen meesha waa geel ka jira Latin America hada arki jirta geel Afrika iyo Carabaha iyo Soomaalida ay qabaan waxa jira nooc kale oo geel ah oo dhirkaasna aan lahayn dhirkiisa ariga wax yar ka dheer laakiin marka aragtid muuqaalkii geel leh oo muuqaalkii geel leeyahay laakiin waa geel ka jira Latin America
noocaas ayuu yahay noocyada ay ka helaan ilaayadaas ay caabudayaan dumarkooda ilaahay u gooniyo qabeen oo gooni ka ah kan ragana la caabudo umad ahaan ay wada leeyihiin laakiin dumarkooda mid qaas ah u jiray ay kala tashadaan arrimoodii guriga reerahoodii iyo dhamaan wixii dumarnimo ay kaga baahan yihiin okay markii la yiraahdo marka sanadka maaya sanadkooda wuxuu ahaa 18 bil 18 bilood bil kastan waa 20 maalin iyo 5 maalin oo ay lahaayeen oo fasaxa ay ku caabudi jireen ilaahiyadooda goormee markii lala wareegay ama bilaabatay burburkii waxa uu bilowday burburkii 1520 ilaa 1697 European-kii wada socda ayaa waxay duulaan ku qaadeen dhulkii ay deganaayeen Maya ama waqooyiga iyo koonfurta America sanadka markuu ah 1520 laakiin isla markaas bay umaysan suuragelin inay dhammaan dhulkii Maya ay ka talin jirtay ay qabsadaan maadaama Maya ay ahayd qortooyo ama ilbaxnimo heer fiican ka gaartay dunida oo way ku adkaatay Isbaanka European-ka in isla markii la wada wareegaan dhul ahaan iyo ummad ahaanba waa sababta keentay in maanta Latin America ay tahay luqadda koowaad ee ku hadlaan luqadda Isbaanishka la yiraahdo waa sababta keentay qoray maanta in luqadda Isbaanishka ay u tahay number 1 ka Latin America dadka ku nool luqadda ay ku hadlaan duulaankoodii ugu horeeyay waxaan ku dhahay markii ugu horeysay caqdigan America waxay ku 1520 laakiin waxay toos u wada wareegeen 1697 markay ahayd qiyaas marka meeqay dagaal ku jireen meeqay isku dayayeen inay qabsadaan shacabkii Maya meeqay ku jirtay inay dagaalanto oo ay isbedel ay sameeyso ummadan iska dul qaado okay sababihii burburka maxaa kamid ah marka laga yimaado dagaaladaas sababihii burburka ummadii Maya ama ilbaxnimadii Maya waxa sabab u ah sabab kasta oo maanta wadan burburay marka aragtid aad ogtahay inay tahay wixii ku burbureen waa koow dagaal kaga yimaada banaanka wadankooda marka labaad kacdoona gudahooda ka bilowday ayaga dhexdooda ay colaad soo qaadeen ayaga dhexdooda ay isculaadiyeen abuurkoodii oo fashilmay oo xagga beeraha abuurkoodii oo ay ka yareeyeen oo kale roobabkii oo yaraada hana qato wabiyadii gurin hana qato dagaalada ku furan hana qato waa in abuurkoodii iska daayeen oo maxaa la yiraahdaa beeruhu aysan abuuranin in dhulkoodii uu qaleel ka dhacay dhulkoodii engega sidii in roobkii oo kale ku yiraadeen ama wabiyadii ay gureen oo kale iyo abaaro ku dhuftay dhulalkii ay ka talin jirtay Maya maanta way jiraan dad wali ka soo haray Maya ama hindidii cascas ka soo hartay waxay ku nool yihiin qaybo kamid ah Mexico iyo qaybo kamid ah dhulalka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa kaymaha Amazon iyo qaybo kamid ah Mexico waana maanta ilbaxnimada Mexico ka jirta ee ahraamaadka Mexico ee maanta loo dalxiis ka tagay dadkeedii way jiraan way joogaan maanta ilaa ay Mareykanka qaybo kamid ah ku nool yihiin laakiin waa dad duurka ku jira oo ilaa ay hadirtaan aanan magaalada soo galin ilbaxnimadii magaalada aanan arkin wali beeraley ah xoolo dhaqato ah wali duurkii iyo hoodkii ku maqan intaas ayaan ku soo koobaynaa maanta muuqaalkeena waa jirtaa waxyaalo badan waa xadaarad iyo maxaa la yiraahdaa boqortooyo intaas oo sano dhisneed sanado badan iyo kumanaan sano dhisneed marka intaan yarkaa 8 daqiiqo lagu soo koobi karo laakiin maanta waa intaan waa horodhac waa xagee ka imaata Maya magacan Maya ayaa sanadadan daba lagu soo batay marka Maya xagee ka imaatay boqortooyadii xagee ka dhisneed soonadii soo bilaabatay xagee ku dambeeyeen burburkoodii maxaa ka dambeeyay oo sababtii burburkooda keentay maxay ahayd intaas marka waxaan intaas ugu talagalnay muuqaal kooban oo guud inaan kaga qaadano Maya maxay tahay xageesa ka imaatay xageesa ku dambeysay hadii aad rabtiin in qaybo labaad la idinkaga soo sameeyane qaybta comment-ga igu reeba qaybta comment-ga hadii ay jaanisi aan arko ama dad codsaha in qaybta labaad dalbahayo waa idin soo sameeyaan